inay yahay gumbaata ina golo lagama oran karo hadal gobi ku haasawdo la gartana namaado naga niriya duub xidho doonyeysa geed goba oo siiri iyo durbaantumo oo dabka yaan la sii shidin dhalasho 1946 inuu dhashay waayo wuxuu oran jiray hadraawi baa saddex gu iga weyn alla naxariistii jannaha ka waraabiye waxa magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ku geeriyooday abwaan hurre walanwal oo kamid ahaa abwaanada Soomaalida kuwooda ugu magac dheer waxaana abwaanku lahaa taariikho kala duwan oo salka ku haya dhaqanka afka Soomaaliga iyo suugaanta haddaba abwaan Yuusuf Shaacir oo kamid ahaa shakhsiyaadka looga bartay inay soo gudbiyaan suugaanta kala duwan ee Allah u naxariistay abwaan hurre ayaanu ka wareysanay taariikhihii iyo sooyaalkii kala duwanaa ee abwaan hurre walanwal daawadayaal maanta oo maalin jimcaha magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxa ku geeriyooday abwaan hurre walanwal oo kamid ah abwaanada Soomaaliyeed kuwooda ugu magac dheer barbarkayga midig waxa taagan abwaan Yuusuf Shaacir oo isaguna kamid ah shakhsiyaadka sida weyn loogu xasuusto soo gudbinta suugaantii kala duwaneed ee abwaan hurre abwaan Yuusuf soo dhawow bismillaah alxamdulillaah inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun ilaahay ha u naxariisto عثمان إبراهيم ورسمة oo loo yaqaanay hurre walanwal galabta geeridiisa Burco markii aan la hadlay lay xaqiijiyay bariyahanba uu xanuunsanayay hurre malaa'imka 5 casho ama 6 casho waxaan ka badnay ayaa laga keenay Hindiya oo loo qaaday oo la soo celiyay mar horena Turkiga la geeyay marka muddooyinkan dambaba وحنوسنايي قلبت أيه تيسي نقطي لهي هون حريستو هدان كلمتك إلى هذا هوري وحايبه الرئيسي أركتدي سكون يستقال بقول يافري سقاشك در دبا وده لون شري نسيه ولا فريسين شري سقيه ولا الكي ولا بدو دبا لهي هون حريسته هتراو نبرجع سايبه الرئيسي أنتي ضمبة برعان ومركي ضمبة يسكون نقطنا هوري isku meel baan ahayn hurre marka laga yimaado suugaanta wuxuu ahaa nin aad ugu xeel dheer dhaqanka Soomaalida iyo afka oo wixii la garan waayo oo eraya ah ama wixii sooyaalka ahaa la weydiiyo ayuu xaqiiqatan ahaa oo macallina buu ahaa oo meelaha aanu u noqono ayuu ahaa بريها أنوجو كقبتي شاكدي أما هستي الأحمرتي سجى إياه كبردي عنبرة ويدولي النول ونجي مركزي دايي إن كستو الشرار كهراء النبضينا وبرعو إيريا ذا كدعي لا يجو برتي هذا عامهم بالشدو هستا سيادي يقصي برتي مركي أي بهذا أي وما ضل حكى شيء وريلا أنتي كدم بيسي تدسكو حلانو أصحابه بانو هين oo isku nool ah oo aan kala maarmin oo kala fogaan nin aad u bulshaya oo dadka ku dhex jira ayuu ahaa waxaan filayaa taariikhdiisa dhalasho 1946 inuu dhashay waayo wuxuu oran jiray hadraawi baa saddex gu iga weyn hadraawina wuxuu oran jiray 1943 baan dhashay waxaanan jeclahay ama ay tahayba ilmo walanwal inuu u dambeeyay hurri rag badan bay ahaa ilmo walanwal laba nin oo kale oo joogi jiray Kenya oo nina la oran jiray Cabdi Ibraahim Warsame nina la oran jiray Qaasim Ibraahim Warsame way ka horeeyeen hadraawina waa kii halkan ku dhintay hurra u dambeeyay marka hablana may jirinba oo rag bay ahaayeen hurra ilmo walanwal u dambeeyay galabtu isna xijaabtay ilaahay dhamaantoodba ha u naxariisto ehelkiisii iyo asxaabtiisii iyo ummadda taqaanayna samiriya iimaan ha ka siiyo taariikhdiisa intaasaan imika aan ka sheegi karaya runtii oo mana diyaar garoobinayda waa uu sikadiisu mana isugu nimi intaas abwaane maxaad isleedahay bulshada Soomaaliyeed abwaankan dhaxalhaan uu uga tagay oo lagu xasuusan doonaa wuxuu ka tagay barnaamijyo badan oo uu duubayna waa jiraan wax qoraal kama tagin waxba lagama qorin sheekada anigu aan berigii baahiyayna way jirtaa laakiin waxa uu kulliba aan filayaa oo le mala gocashadeeda leh inaanu gabayo badan oo lahaa aanu duubin waa filaya qaarkood casharada ku jiraan laakiin inaanay baahin laakiin wax badan oo kale oo barnaamij ah
oo laga duubay waxay ku jiraan youtube-ka waa ka buuxaan marka waxyaabahaasa lagu xusuusan doonaa sheekadanaana ugu sii caansan waxa lagu xusuusan doono waa sheekada cambaraya isaga bal sheekada waxyaabahaad is leedahay way ugu caansan yihiin oo maskaxdaada yuusuf way ku jiraan intii sheekadaasi aad tabinaysay maadaama aad u dheerayd ereyadiisi maxaad naga maqashin kartaa wallaahi imika waa iska taagtaaganahay oo ma ahayn waxay u baahan tahay diyaar garow laakiin waa sheeko dee dadkao dhan imika wada hayo oo caana oo iyada uma baahnaa maxaa xasuusinaya uma baahna ee dadkao dhan baa wada haya waana sheeko dheer oo isku xidhan oo u baahan in dee mar si wacan loo tabiyo maaha wax eraya laba laga xasuusan karayo marka hurre waxaynu u leenahay aynu ku sagootiyaynaa maalin wanaagsan oo jibcaha buu go'aye ilaahay ha u naxariisto ilaahay naxariis jannaha ka waraabiyo waa maalin khayr badan buu go'ay bal sheekadaasi qaybta u dambaysa ee hurre uu inanta cambaro labinta siinayo ee uu ku soo gunaanadayo taa wax ma ka xasuusataa wallaahi imika